ودب وواحد جرا إذا ما سواجران حد رانا دحفديا واجرت مركا حاجة وصعتها وصعنا مدحوينها قل مدق أو شرعي كوحدة دولة لماذا هي دستور كوجرب مرتي ونبض هي النرال قبل أن كبد دستنا مدحوينها سبترتنا ولا دذي ماشي أقول قضاء صناعي أول لكن هذا أنه عن دولة لماذا أبيني ودولة لماذا كفري وكعاسي ما ربنا أن كسب دستنا مدحوينها marka ciidamada aad wadid ma ciidan dawladeed ba ma ciidan galmudug ba mise waa ciidan maleeshiyada xaf ciidamadiisii taageersanaa ma ciidan daraawista galmudug waayo dawladda galmudug ay iska leedahay tiradina waa imisa ciidan sembiri lama sheego laakiin waa ciidan ku filan inay soo badbaadiyaan madaxweynaha xagee joogtaa hadda marka ماشي عن جوجنا مدحوينها ولا حيرني وحوني أفري الله تسع نوكادية أمر كيسان أنو كشغينا ماشي وعمل أنو دارين كيسان جوجنا الآن وحوي وحتى وزير كم إذا قال مذوق وزير كمالية ده تاينات عدمه جامساي شرعي صحان شهده وحبها أنت إن دبل الله تشرعية دي مركا محاك وقف بين عيدا سو جامس كلي جايب معي وزيرات بدنا معي وحي ku kalifay dawladii aan dooranay oo Soomaaliyeed oo la rabay dadka iyo dalkaba inay u dhaxayaan waxa ku janjaamay inay galmudug dhex gasho oo iyadu ay ku dhaqanto qaab qabiil ee dawladnimada aad uga fog ayaa arigana uu kalifay mana ka faanayo diyaaran u ah inay madaxweynaha soo badbaadiyo yaa way wasiirada kale kula socdo waa badii dowr هذا أنا وحكي شيء معنا يقول فدسوق لكن طبعاً وسيلة الكلمة وحيد ديار فيه الدفاع عن مدحوينه. مدحوينه وحول شوجا ديجان نبضة وأي قلمذق حرنه إذا ما قلمذق على شوجا ما واحد دوني صار مركا إن تلك علاد يدقين عشان لانك أبورسان. نبض ما هم نبض بيت أمريكا مدحوينها كشغيل هاي وسير كأرمها جدها قلاش قلمذق كإيمانا على صدري. meesha u dhashay macna ma samayso dawladda federaalka oo ku tirsanyahay cid u fasaxday lama arko 12 galad oo koow iyo laba lahayn ay ku jiraan sidaas awgeed anuguna diyaar waxaan u nahay inaan ka jawaabno dhammaan waxyaalaha noocaas ku kaceen dhuusamareeb ciidan dawladeed ma joogo ciidamada ahlu sunna iyo kuwii galmudug ku sugan yaa haysta madaxweyne xaaf waa doonaysaa inaad ka badbaadisaan أعداده أو هدرتان أما هذي أي كثير لا يهين إن كستو رنتي مركي رنت اللي قاعد لا يو واحد لا توه مدحوينه أبغى يستأني يجرين حدنا ساعده واحد يجرين مدحوينها أما هذي بوين كيس عريري الجليي ديارنا وحرقنا هاي كلا دمبين تأي أمر كمدحوينه إنه شقيق نسوي marka waxa qiraysaa oo aad cadeynaysaa madaxweyne xaafino sanxur ahayn maya kuma dhigin xor maahan aniga saacadaha jiray haddeertaan aan la hadlay madaxweynuhu xor waaye 24 saac oo soo socda ugu sima isagaa yidhi dad wax garada oo aqoonyahana oo macno leh baa jooga iyagiyaana talo u socotaa anaguna intaa waa isugu kaadinayna waxaa jira sida la sheegay ciidan kale oo dhuusamareeb ka soo baxay oo jooga meesha idinka aad ku sugantiin meel aan ka fogeen xiisad colaadeedna inay taagantahay waa la soo warinayaa marka ma jira ciidanka kale waxba kama jiraan ciidanku aqal dad waxa weeye maskaxa lana yaqaano min loo yaqaano dadkii u soo gurmaday markay go'doonsanayaan nahay waxaan nahana waa yaqaaniin hal askari oo naga soo horjeeda ma jiro dadkana waa isku degaan waxaan ugu soo duulay waa sabriye iyo kooxda nabad iyo nolol ma ahan dadka reer galmudug sabriye ciidan ma wato waa shakhsi socda xilibaan baa la socda duulaankiisa ma mid madaxweynuhu go'doon gelin kariya ومن نقام حلبان أنه ضدك كونيجا حوجا العجها اللي قاعد تم قبلين سبعين الدلالات ومن نقام حلبان هديهين وكل كلمة أركضور أيهين هل كل أيوة جوان لا حرير لهايين ضدك النوع عشان أنه حلبان ومن نقامه marka madaxweynaha galmudug xaaf wasiirada xamar ka baxay ee dawladda dhexe iyo xildhibaanada oo aan ciidan ahayn ma noo sheegi kartaa sidoo go'doon ugu jiro oo uga soo bixi waayo waad badbaado uga socotaan waxa uu go'doonsan yahay aan ballan lahayn oo ballantii ka baxay oo ku bedeshay wax yar oo anagu aanan garanayn meel ay naga soo galeen iyo wax yar oo sandareerta oo meel macnaheedu ay gaarayaan aanan garanayn
niman ku bedesho u goosaya maahane dadka reer galmudug ama dadka reer dhuusamareebba diyaaray u yihiin madaxweynahooda inay soo dhaweeyaan ama raba ka qaataan annaguna waxaan rabnaa kala dambaynta iyo nidaamka inaan soo celino habay yaraatee meeshaas nidaam darra ka dhacday wasiir arrimo gudaha aana u yeerna iska soo degay wadaado ilaa idinkiisa wadaad hadda aanan rabin magaciisa inaan wax ka sheego oo aad iyo aad aan uga xuma qiimihii aan u hayay iyo qadarinta aan u hayay iyo meesha caawa uu joogo baa ka shaqeeyey waxyaalaha noocaasa wax aanan malaysanaa meeshaa nooga yimid sidaas awgeed dadka reer galmudugna ka tashanayaan go-aanana waa ka soo saari doonaan dhammaan dadka reer galmudug dal iyo dibad hadday joogaan waxaan u sheegaynaa nimankaas inay farta ku fiiqaan arkaanna wax ay ku kaceen wasiir adiga iyo xubnaha kale kula socda mas-uul ma ka noqonaysaan dagaal kasta oo dhaca ciddii ku dhimata adeer meesha dagaalba ka dhici maayo saa ila hadasha adiga dagaalba kama dhacayo dadkuna waana ogol yihiin wax kastana waa dhammaanaya cidda aad leedahay madaxweynaha go-doon ugu jira oo ballan bay ka baxeen aad leedahay madaxweynuhu qol uguma xirne waa ciidan iyo maamul dhisan oo meeshii ka jira way dagaalami karaan waxbaa dhici kara waa dad aan shaqaba ku lahayn maamulka macalin maxamuud kow ka yahay waa macalin maxamuud iyo raggii kale la socdaba hayba maamulkana kuma jiro awal baa annaga madaxweynaynay shiiq ka dhigana meesha noo joogay wax kalowna noqday maamulkana kuma jiro intuu meesha joogo lala shiraayo talada oo gees uga degan yahaana haba yaraatee waxaan meeshaas ka qabsanayna iyo waxaan ku darsanayna dab ma jiraan ma weysan cid idin xallisa oo arrintan xal u raadisa intaanaan dagaal iyo ciidan iyo duulaan lagu soo bixin oo aad gaalkacyo ka soo tegeen dhinacyadii kale siyaasadda galmudug mala hadashan hadduu muuqdaa haddaa madaxweynaha waxgaradkii deegaanka u yimaadeen haddaan taladooda sugaynaa xalkiina hadduu muuqdaa dib dambe laakiin lagama yaabo shaararka dadka aan u gelinay oo aan dawladii galmudug inta ka rarnay deegaankanagii aan u geynay barqadii annagoo wadna aan u geynay oo ku karaamayno culummada uga dhigno caamada uga dhigno wax kastaan ka dhignay inaan karaamad dambe uga fadhino marna lagama yaabo ummadda dadka reer galmudug na waxaan leeyahay ka badbaadsada xukunkiina alihiin hadduu leeyahay dadka noocaas madaxweyne xaaf haddii uu cadaado ku shaqayn waayey dhuusmareeb ku shaqayn waayey intii kalena shabaab heestaan waxaad rabtaa inuu gaalkacyo ku shaqeeyo waxba kama jiraan yaa kuli cadaado ku shaqayn waayey si sharciyan uga soo guurna cadaado kumana shaqayn weyn dadka waxuma tashiilkaada kamid oo su-aalaha qaldan loo soo dhiibay cadaado degmo galmudug kamid ahay ahayd meeshii dawladda galmudug lagu dhisay ahayd magaala madaxdii dhuusamareebaan u guurnay magaala madaxdii dhuusamareebaan dawladii u rarnay wax kale ma annaansano kumana shaqayn weyn cadaado dawladda madaxweyne xaaf isagaa toddobaad ka hor yidhi xamar hal sano gurigayga ma tegin cadaadana diyaarad baan ku dulmanaa dhuusamareeb buu joogay hadduu aad leedahay waa lagu heestaa galkacyaad rabtaa inaad u galbisid xukunka galmudug galkacya cadaadaan geynaa adig kaa qaldanta haddaan kuu sheegay cadaadaan geynaa ubaxyaana lagu soo dhaweynayaa iyadoona ku shaqaynayaa gaalkacyana waa ka mid cid diidaysa lama arko haatan si waaba kasii dhowdahayo dadka reer dhuusamareebeed ayagaa u diyaarin iska badbaadiyaan kooxda dushooda ku nool oo dhan aqriya adduun midna u diiday oo galna hadda in madaxweynuhu ku shaqeeya dhuusamareeb